haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarki iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid aad ahaateed aada rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan, waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fi suurati الracd, في سورة الإسراء، في سورة الأنبياء، توبة، سبأ، صاد، حديد، حشر، صف، الجمعة، التغابن، سور كاسودن يد الله تيرين أيه ويصبح الرعد بحمده وانكد كاسبا إلى إليه وتصبح سنة سقوا ولبا حمدي قال لك هي وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير. نبي الله داود إلهي وحلي وحن وسخر بورها للتسبيح سنجري الجبال والطير أي هل كان إلهي كنت المامية تسبيح سنية بل إله القرآن كوح كنت المامية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إركا وحجرة ينولك وحجرة تضبط إر ينولك وحجرة iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilaahay bay u tasbiixsanayaan. wain min shayin laa yusabixu bixamdi, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkuun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa, dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون. mid waliba طريقه uu tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillaahi bnu mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy. ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaanaه wa tacaala. wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray, sheekh albanina saxiixa ku tilmaamayo, wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nebigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakru wa cumaru wa cuhmaanu wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhammina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlayay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi الsalaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyay. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi الsalaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay, dadka iyagii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebiguu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan innagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suuratu taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lardi lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabbika alacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla 7 suuradood 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabmaan alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajacala nuura wadulumaat yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwa iyo saba 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo a waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo a waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo a 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo a maratayn siqa masdara iyadoo a 2 goor siqa ism iyadoo a 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan ee qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay
كي نصبحك كثيرا بيدي كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلهي ولا الكينة رسول كدقو يقدر ويقول حوشي كي نصبحك سيأنو كوغو تصبيح سنو ويلحوشي ذكر إلهي سبحانه وتعالى ربه ويقدر بوليه نبي يونس نوين صامر تصبيح ديسي يين إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا بدبادي قرآن كوحو كور رمية نبي الله موسى ومركو يري ربي أنكو أركو ربي يري يا أركرمي سيدا بورتا ربي بورتا تجلي وسميي بورتي دكن نقطي مركو مير قصان نقضي تصبيح مقبل فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تصبيح مقبل بالله نبي الله زكريا إلهي وحوي ديستين الملسيو سوى قبوبي ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kathiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso ذكري مركي الله شيء تصبيح دوا كمد هذا نجار بالله شيء بيلي وواحد اللي وصبح بالعشي والإبكار نبي الله عيسى إلهي وحد الماما يا آخره مركي الله سوى تاجو إلا يرى ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا دتك كويري أنا جي هو يدي إلهي أنا قاعد أكتب وحوكب بلا بدون أبا إلهي لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك مكبل أبيا نبي الله محمد إلهي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تتك واحد كنت لهذا إلهي لي جدك ينيدين كيرية وكان إلهي بانيدين كيرية أنا على بصيرة كسوغن أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت الراعي وسبحان الله دهبل لي وما أنا من المشركين إلهي بان حمكه فيا أنت ربي عيبي سنة كمان بدي مشرك وعيب له إلهي صفات كيسي أسمادي سي مقعيدي سوديدي عبادة الله لسينا يديدي ربي بو عيبي ويا إلهي مركه حليه وحتى هو سبحان الله وما أنا من المشركين بل قرآنكو أنبياء الداية dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid inma yu'minu biaayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyay inma yu'min biaayatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyay waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya وكو إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدا إيغو كده هيا حمد قال له وان إسوينين كجر برب إلهي مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته ينوغو تلمام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يصبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول استي إلهي وحط المامين كل واغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح بها إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كشيغ يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدعة لما ذيبا الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yaraha leela markuu ka baxo
tira aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxaan allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga. laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen, iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannay oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato. nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abi dar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi, nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah, waxyaaba alla u jeceliya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi. haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi. kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdih. xadiis labaad abi dar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu, warka maxaa u fadli badan? nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih, wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih, oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih. idan ayuha alaxiba, tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa, cibaadaadkay culammadu yidhaahdaan cibaadooyinka aan waktiga lahayn, shuruud lahayn. waxaa laga yaabaa salaad, soon, xaj shuruuday leeyihin, waktay leeyihin, waa la mudeeyey, waktiyadaasubaa la sameeyey. ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay? cibaadada mutlaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto. waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati. haweentii wardiday uu nebigu kusoo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi, oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi, ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa, cadada khalqihi, tirada makhluuqaadkiisa, iyo zinata carshihi, iyo ridaa nafsihi, iyo midaada kalimaati. idan ayuha alaxiba, tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto. cumar bn lkhadaab maxaa laga sheegayay? walow kuntu musabixan la atmamtu. salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi walow kuntu musabixan, haddaan tukanayo sunno, yacni haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay. walow kuntu musabixan la atmamtu. idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa. sharcigu intaba wuu soo arooriyey. shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa, waa inaga aayaadka soo aragnay. walaqad naclamu annahu yadiqu sadruk bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi. nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayna idhaahno subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun. waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam, nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak, wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay, dib buu u caafimaaday. waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak. waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi. waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa. qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun, ama ducadii allahuma anta rabbii laa ilaaha illaa ant. waxay sheegaysaa in la tasbiixsado. markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa, wain kaana midlu zabadi lbaxr. saxiixeynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay, at least xataa haddaynu idhaahno saqaa'irta, oo saqaa'irta maxaa ka badan? subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo, ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa, imisaa khayr aad u malaynaysa? waagu markuu baryaabaynu war bilownaa
haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakil